walaalkay ayaa si kadis ah loo waayay mana la ogeyn meesha uu aaday. Isla markiiba aniga waxaan hore ka bilaaway inaan akhriyo xooqalada oo aan dhaho laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Markaan kun xabba marsiinayo ayaa waxaa soo wactamay taleefan noo sheegayo in walaalkayga la soo ogaaday meesha uu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan walaalaha qaaliga ee ku xiran channelka iyo dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono waa mahadsantihiin booqashadiina. Allah idinka ajar iyo jasa siiyo. Jasaakumullahu khayran fi ahsanil jazaa. Soo dhawaada walaalaha khayrka jecelow. Alxamdulillaah, Ilaahay ayaa mahad iska leh naga dhigay dad islaama. Ilaahay ayaa mahad iska leh na siiyay caafimaadka. Ilaahay ayaa mahad iska leh fursad iyo jaanis kale iyo maalin kale inta na siiyay oo aan cibaadeysan karno. Alxamdulillaah, Ilaahay ayaa mahad iska leh isku soo keenye celiye annaga oo nabad qabna kalan faa'iideysanayna khayrkan isku bogaadinayna. Dhammaan walaalahayga qaaliga waxaan idin rajaynayaa inaad caafimaad qabtiin oo nabad qabtiin oo maalintiina idin tahay maalin qurux badan. Dhammaan walaalaha kurbada iyo culayska ay haysatana Ilaahay waxaan uga baryayaa faraj khayr qaba inuuna siiyo dhammaanteenaba. Dhammaan walaalaha xanuunsan iyo dhammaan walaalaha laga xanuunsan yahayna Ilaahay waxaan u baryayaa caafimaad taama oo sariic ah inuu Ilaahay siiyo. Dhammaan walaalaha kale ee kurbada adduun iyo culeysyadeeda kala duwan ay haysatana Ilaahay kurbada iyo culeyska Allah ka dulqaado. Inta deemaysanna deemaha Allah ka gudo. Inta xabsiyada ku jirta xabsiyada Allah nooga soo deeyo. Muraadkeena oo macsi lahayn Allah na siiyo. Aamiin yaa rabbi. Aamiinteen iyo aamiinta malaa'igtan Ilaaha kulmiyo. Aan ku wada salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa baarik ala nabiyyina Muhammad. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهي waxaan weydiisanaynaa markasteento inuu khayrkana jecleysiiyo nawaafajiyana meelaha khayrka lagu haayo aadistooda. Waa maalin kale iyo xilli kale iyo qisaskii laga arkay istighfaarta xooqalada saliga nabiga iyo suuratul baqara iyo quraanka dhammaantiisa ducooyinka iyo xuska alle. Qisadani ugu horeysa waxa ay ka hadlaysaa waa istighfaarta waxa ayna leedahay waxaan daa'imay istighfaarta waxaan u niyeystay in uu walaalkay oo aan u xiisa uu ii imaado balse maalmo yar kadib waxaa imaaday walaalkayga waxa uu noo sheegay inuusan u qorsheysanayn inuu soo baxo balse uu is arkay asaga oo soo qalab qaatay oo soo baxay. Subxaanallah, Ilaahay ayaa xumaan oo dhan ka nasahan waxayna ku sugnaatay awoodiisa wax kasteento. balse waxaan ku helay ayay dhahday istighfaarta akhrinteedii in walaalkayga oo hilow badan uu ii hayay awoodeydana aysan ahayn inaan aado in Ilaahay ii soo qasbay oo uu imaado asagoon ogeyn asbaabta uu soo baxayo. Qisadan kalena waxay leedahay istighfaarta ay ka hadlaysaa waxa ay leedahay walaashayda waxa haystay mashaakilo xagga duulimaadka oo waraaqadeeda duulimaadka ayaa wax ka khaldanayeen ayay dhahday. waxaan kula taliyay inay bilaawdo istighfaarta iyadoo u niyeysanaysa in xalkeeda Ilaahay u soo sahlo oo arrimeeda Ilaahay u fududeeyo. Way bilaawday istighfaartii balse isbuucyo gudahooda ayaa waxaa loogu soo xaliyay umuuraheedii oo mid ka mid ah shaqaalaha ayaa wuxuu qaaday ayay dhahday waraaqadeedii wuuna u soo dhameeyay xalkii mashaakilkeedana sidaas ayaa lagu helay istighfaarta ayayna ku guuleysatay ayay leedahay gabadhaasi. Quraan kalena waxaa laga soo wariyay waa salaada Ibraahimiyada. waxa ay tiri qof gabadhan waxa ay leedahay waxa aan ahayn xilliyadii corona uu jiray oo internetka lagu qaadan jiray ingilaasyada ama waxbarashada. waxa naga go'ay dhahday xilligii cashirka soo gali lahay wax yar ka hor internetka ayaa go'ay balse markuu internetka go'ay cashirkana soo gali rabo ayaa waxaan bilaabay ayay dhahday salaatul ibraahimi in celceliyay saliga nabiga balse internetka ayaaba soo noqday 2 daqiiqo ka hor inta aanan cashirka u bilaaban. Alxamdulillaah, fadligaasna Ilaahay wuxuu nagu siiyay salaatul ibraahimiyada. qisadan kalena waxaa laga arkay xooqalada waxa ay leedahay waxaa si kadis ah loo waayay walaalkay lamana ogeyn meesha uu aaday. waxaan bilaabay inaan soo qaato tasbiixdeedii oo aan ku celceliyo xooqalada oo aan iraado laa xawla walaa quwwata illaa billaah ilaa kun mar. waxaa isla markiiba noo soo wacay ayay dhahday taleefan noo sheegayo in walaalkayga meel lagu ogaaday oo la helay. Alxamdulillaah, Ilaahay daqiiqad gudaheeda waxa uu nooga feeday kurbadii kadib markii aan ku celceliyay kaliya 1000 mar xooqalada oo aan iri laa xawla walaa quwwata illaa billaah. qisadan kalena waxay ka hadlaysaa fadliga iyo qisaska laga arkay saliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam.
waxa ay leedahay qisadani waxaan uga sheekeeyay hooyadeyda faa'iidooyinka ay leedahay salaada nabiga lagu saliyo aan qisas badan oo kala duwan oo laga arkay saliga nabiga hooyaday uga sheekeeyay waxa ay bilowday inay tiraahdo walaalkayga joogtay salaada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalkayna waxa uu ahaay 10 sano ka hor ayuu wuxuu dhameeyay jaamacadii balse ma uusan helin wax shaqo oo wuxuu isku mashquulin jiray macaahid iyo meelo tababaro iyo waxyaabahaas ayuu iska dhigan jiray 10 sano waxa uu bilaabay walaalkayga inuu akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam kad kamid ah shirkadihii uu CV-ga mar hore geystay ayaaba soo dalbaday walaalkayga waxay u magacaabeen xibin iyo boos saro kamana soo wareegin 3 bari kaliya markii hooyaday kula dardaarmaysay inuu akhristo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam qisadana waxa ay ka hadlaysaa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay wiilkani waxaan ahaa qof xanuunsan oo aad u dhul dhacay kadib markii aan bilaabay badinta saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuu igu daaweeyay arinta kale oo ku helana waxa ay tahay mushaakilaadkayga oo dhan waxa ku xalismeen saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam arin uma baahdo ayuu dhahay ilaa waxaan aadaa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam arintaas way ii xalismataa culayska haysteen wuxuu igu bedelmaa ayuu dhahay farxad leeyahay waxaan idin kula dardaarmayaa maalin walbeento inaad badisaan saliga nabiga una bishaareysta marka aad badisaan saliga nabiga inaad heleysaan khayr oo dhan iyo wax kasto oo aad tamanisaan siiqo kasto oo akhrisanaa aad akhrisataan waa mustajaab waa la aqbalayaa muhiimada waxa waaye in la badiyo kaliya oo la badiyo afkaaga lagu badiyo shuruudna ma aha in ay tiro isku koobto intaasoo kun akhri maalinta in lagu dhaho shardi maaha laakiin inta akhrin karta in akhriso markasto aad sii badisana khayrka un ayaa kuu sii badanayo ugu yaraan waxa fiican inaad gaarsiisiin ayuu dhahay 10 kun maalintii oo lagu daro istighfaarta waxa uu dhahay waxaan ku dhaaranayaa noloshaada waxay isku bedelaysaa sida ugu wanaagsan macnaha waxa waaye markii la akhriyo 10 kun oo saliga nabiga iyo istighfaarta ugu jirto istighfaarta iyo saliga nabiga oo isku jiro marka akhriso maalin walbeento qurbooyinka iyo culeysyada dhan ayaa ilaahay ka dul qaadaya qisadan kalena waxa ay ka hadlaysaa istighfaarta iyo faa'iidooyinka laga helo waxa uu yiri wiilkani waxaan u baahnaay lacag oo waxa ay ugu go'oneed lacag fara badan waan murugooday waxaan ka fikiray in badan meesha aan ka heli karo lacagtane balse ilaahay waxa uu igu ilhaamiyay in aan bilaabo istighfaarta waxaan bilaabay istighfaarta waliba tiro aad iyo aad u badan aan u akhrinayo waxaan kaloo ku daray ayuu dhahay akhrinta quraanka iyo asmaullahi alxusna waxaan u baahnaa ayuu dhahay lacag maantoo kale markii aan akhriyay alxamdulillaah maalintii ku xigtay ilaahay wuxuu igu arsaaqay lacagtii aan u baahnaay naftigeeda iyo intii niyadeyda ku jirtay alxamdulillaah arrimahayga ilaahay wuu ii xaqiijiyay haddana waxaan joogteeyaa oo aan daa'imaa istighfaarta iyo quraanka iyo adkaarta iyo asmaullahi alxusna ma joojiyo alxamdulillaah ilaahay ayaa wax kasta oo mustaxiil ah ka dhigo mid dhabowda wax kasta oo suurtagal ahayn ilaahay ayaa ka dhigo wax suurtagal noqon kara haddaba intaas ayaan ku soo koobaynaa maanta qisaska laga arkay istighfaarta xawqalada saliga nabiga quraanka ducada asmaullahi alxusna akhrintooda ma aha mid la soo koobi karo allah waxaan weydiisanaynaa in ilaahay ka dhiga carabkeena midkii mar walba ka qoyan xuska allah